madaxweynaha la doortay ee Kenya William Ruto ayaa sheegay inuu qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Kenya Uhuru Kenyatta. Waxa uu sheegay inay ka wada hadleen doorashadii dhacday iyo sidoo kale marxaladaha kala guurka ee Kenya. Waxaan wada hadal telefoonka la yeeshay madaxdeeda madaxweyne Uhuru Kenyatta. Waxaan ka wada hadalnay doorashooyinkii guud ee dhawaan la soo gabagabeeyay iyo sidoo kale marxaladaha kala guurka sida ku cad dhaqankeena dimuqraadiga ah. Kenyatta ayaa shalay mar uu la hadlayay shacabka Kenya diiday in uu soo qaado magaca Ruto oo isniintii maxkamadda sare ee Kenya ay go'aamisay guushiisa. Waxaana Ruto uu horey u sheegay in uusan muddo bilooyin ah la hadlin Kenyatta oo uu muddo 10 sano madaxweyne ku xigeen u ahaa. Kenyatta ayaa doorashadii dhacday ku taageeray hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga oo markii shanaad u tartamay xilka madaxweynaha Kenya. Ruto ayaa lagu wadaa in 13 bishan loo dhaariyo xilka madaxweynaha Kenya. Cabdinaasir Socdaal, Bilan Radio.